madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa waraaqiisa aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka dawladda Soomaaliya u soo magacawday dalka Senegal Danjire Maxamed Xuseen Awliyo. Danjire Maxamed Xuseen Awliyo ayaa nuqulka waraaqiisa aqoonsiga danjirnimo waxaa ka gudoomay madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall iyadoona loo sameeyay hab maamuus qaran oo lagu soo dhaweynayay safiirka cusub ee Soomaaliya dalka Senegal Danjire Maxamed Xuseen Awliyo ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarinta cilaaqaadka dhinacyada badan leh ee ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Senegal. madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa dhankiisa soo dhaweeyay safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya u magacawday dalkiisa waxa uuna ballan qaaday inuu gacan ka siin doono gudashada waajibaadkiisa safiirnimo. Deeq Maxamed Cali, Deeq Socdaal, warbaahinta MMC magaalada Muqdisho.